markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay maanseyahanada soomaalidu ugu xilan jireen, sida sariigta, baqdinta, hogatuska iyo qaar kale. kolkolka qaarkood fariimihiisa maanso ayuu gabyaagu habka sarbeebta ku dahaari jiray, isaga oo ka cabsi qaba haddii aanu sidaas yeelin in laga dignayn helo oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiin ay wax kala dhex baxdo, dabadeedna ay dhexda ka kala jebiso. waxayna u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay colaaduhu jiraan inay soo ifbaxdo, iyada oo gabyaagu uu ugu warrami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay dood wadaag iyo dan wadaagba yihiin. taana aan ku tusaaleeyo tix aan ku tilmaami karo gabayada sarbeebta ee soomaalida kuwa ugu foolaadsan inay ka mid tahay. marka horese sheekada la horraysiiyaaya waxaa la yidhi laba qolo oo aan abtiriska ku kala fogayn weligoodna daris ahaa ayay colaadi ka dhex aloosantay. siday caadada soomaalidu ahaydna qolo waliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay kolba nin doorka laga tilmaamo, dagaalyahanka ugu geesisan, sheekha ugu aqoonta badan, deeqsiga lasoo tamadiyo ee abaar iyo aaran aan guryihiisa lagu qadin, aftahanka geedka hadalka ah ee maalinta garnaqsiga la isku hor fadhiyo, isaga afkiisa la dhowro, guud caddaaga talayaqaanka ah ee markay arrini ribataba kala furfura, iyo kuwa kale ee la heerka ah. ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaayi way ku faani jirtay. waxay odhan jireen, reer hebel waxaan ka dillay mid ay dhabarka kaga jabeen, mid aan loogu labac dhaafin, mid uu gurigood ku ba'ay, mid ay ku gablameen, mid ay indhuhu kaga dhaceen, iyo weerar lamid ah oo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay haddiiba dhiig walaal oo la daadiyaa uu guul noqdo. si kastaba ha ahaatee, muddo dheer hadday labadaas qolo rag iska laynayeen, geerar kala dhacayeen, si walbana ay isugu qumayoobeen, ayay waagii dambe kala daaleen. dagaalkii kafoolka ahaa ayaa hakaday. markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku aa'aan, dhabbayaasha lagu sadcaalo iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaadsadaan. galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la odhan jiray xasan khalaf dalal iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciil awgiis siduu ilkaha isugu garaacayay ay dibnihii googo'een. waxaa la odhan jiray nuur cilmi. waa aardoono in adeerkiis baa goor aan fogeyn warmaha laga aslay. isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qolo ee colaadoodu dheeraatay middood. xasan khalaf oo xasan bidde lagu naanaysi jiray wuxuu galabtaas si weyn ugu farxay dhirifka iyo guhaadda foolka nuur cilmi ka muuqda. shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay, oo awel ma uu hubine galabtaas unbay u caddaatay goor ay noqotaba inuu nuur cilmi cid gaba wari doono, kadibna hebelkoodii la dilay uu xabaasha ku xasili doono. la kala carrow oo labadii nin midba reerkiisii u dheelmay, hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna eliya baalis ma saarin. welwel iyo wahan arrin qora ku saabsan asi markay kala tegayeen aanay ku ballamin ayaa gama ay u diiday. nuur cilmi markuu dhinaca dhulka dhigayba wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira, ina adeerkiisii la dilayna uu ugu aari karo. xasan bidde isaguna wuxuu ka baqaayay nuur cilmi intuu aarsi u qalab qaato inuu birta kula kufo
liid nacas ah, nin haddii la dilo carruurtiisa iyo hooyadood mooye aan cid kale tabi doonin, mid goraya cawsha iyo garanuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga, xila ermaanays geesigoodii dhowaanta la makalay aan sina ugu dhigmi karin. markaas buu goor ay saqdhexa tahay inta salmuggii u fadhiistay gabay bilaabay, gabay sarbeeban oo uu Nuur Cilmi ku hoga tusaayo. wuxuu ku gubaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gami karo oo keliya inuu warmaha ka casaysto, isaga oo u dan leh mid ay wada garanayaan oo haddii uu u gacan galo ay qolada kale dhabarka kaga jabi doonto ayuu ku tirtirsiinayaa. laba jeer noqod inaan loo baahane uu gacanqaadkiisu mar keliya noqdo ayuu ku gubaabinayaa. tixdaas uu xasan bidda Nuur Cilmi kula ballamayna waxaa ka mid ahaa: nin gabraarsadaa Nuur Cilmow, gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor, gaajo qaayibiye waayana ilaahbow gembii, tuu guddoonsadayee nin haldhaa u soo galay ma gano, goraya cawleedee goodkiyo abeesada, maskaa geeri kaga roone reerkeennu gaajada uus qabo, goolma kaafiyo dayrkii la soo goday biciid, gees la abaadegayee laba gooshiqaad bay ku badi, gadaha qaarkoodee nin guddoomiyaan kula damcaye, hayla garan waayin garanuugta yaan laygu layn guran magoolkeeda. gabaygaas markuu dhuuxay ee uu ruugayna Nuur Cilmi wuu ku dhaqmay, intuu ku duxay buu ku camal falay, dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo xasan biddaba ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacayay. sarbeebtu maansada oo qora kuma timaadee tiraabkana way ku timaadaa. sidaa darteed waxay soomaalidu weli xusuusan tahay sheekooyin daboolan oo ama isxujaysi looga dan lahaa ama badano kale laga watay, waxaana ka mid ah tanaan haddeerba idiin soo gudbin doono. waxaa la yidhi barbaar Soomaaliyeed ayaa beri xeraystay, dhulkii reerkoodu degganaa dhul ka fog ayuu cilmiga ka raacan jiray, halkaasoo uu aqoon diineed ka helay, ha yeeshee ay gaaja ku dubatay sida badanaa xeer cilmigii hore ku dhici jirtay. daraartii dambe ayuu halkuu wax ku baranayay waxaa ku soo maray niman safar ah oo xagga reerkii isaga dhalay ka yimid, dhowaanna ku noqon doona. maxaad aabbaha noo faraysaa ayay xerowgii ku yidhaahdeen. markaasuu ku jawaabay: wax kale idiin fari maayee haddaad aragtaan waxaad ku tidhaahdaan, wiilkaagii 5 salaadoodba weese qura ayuu ku tukadaa. weedhaa sarbeebta lagu dahaaray, inkastoo socotadii fariinta qaaday aysan waxba ka garan, haddana odaygii ay u geeyeen ujeeddadii wiilkiisa wuu gartay. kolkaas buu isaga oo yaro murugaysan nimankii ku yidhi: wiilkaygii gaajo ayuu sheegtay, bal carraduu joogay markaad ku noqonaysaan isoo mara. qumbo subag ah oo afka haya iyo weel uu ka soo buuxiyey hidbo ku bisa oo 30 cad ah ayuu u dhiibay nimankii safarka ahaa, oo halkuu wiilkiisu xerta ka ahaa mar kale ay awrtu ugu raran tahay. wuxuu ku yidhi: alaabtan wiilkayga u geeye, waxaadna ku tidhaahdaan, aabbaha wuxuu ku yidhi bishu waa 30, balliguna waa buuxaa. nimankii safarka ahaa haddii ay laba dhex sii marayaan ayay subagii iyo hidhibkiiba intay wax uga baahdeen qayb ka cuneen. dabadeedna markay u tageen ayay wiilkii labadii weel iyo fariintiiba farta ka saareen. isagiina wixii ugu jiray markuu arkay ayuu nimankii ku yidhi: niman yahow, aabbahay wuxuu ii sheegay hilibka uu ii soo dhiibay inuu 30 cad ahaa, qumbuhuna uu afka hayee maxaa torow kala dhantaalay. fariimihii daboolaa ee odayga iyo wiilku isdhaabsadeen sow kolkaas lama ay ashqaraarin. dabadeedna intay yaxyaxeen sow wixii ay fareen ma dafiri waayin. waa sarbeeb, waa hadal qarsoonoo dadka oo idin furfuridiisu aanay u wada fududayn, murtidiisa iyo farshaxnimadii lagu falkiyeyna ay soo baxdo uun kolka daboolka la inooga qaado. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.